ciidamo ka tirsan kuwa ka soo horjeeda dowladda ayaa la sheegay inay ka guureen fadhiisamahoodii hore ay aagga u bedesheen meelo kale halka dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dowladda ay bilaabeen inay furaan wadada u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 iyo Tarabuunka wadada 21 Oktoobar halkaas oo horey ay dhufaysyo ugu sameysteen ciidamo ka tirsan kuwa taageersan mucaaradka oo ilaalo u ahaa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Saadaq John iyo Yuusuf Indhacade waxaa sidoo kale la arkayay xaafadihii iska hor imaadka ka dhaceen dadka ku sugan oo isku dayay inay ka qaxaan gaar ahaan xaafadaha la soo wariyay in laga barakacay waxa kamid ah xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Howlwadaaga waxaana la arkayay gawaarida ay saaran yihiin dad barakacayaal ah isla markaasna ay ku raran yihiin agabkii guryaha sida maacuunta oo maraya wadooyinka magaalada maalinkii shalay ahayd waxaa xilnaa inta badan goobaha waxbarashada gaar ahaan jaamacadaha lamana oga in saakay ay dib u furmeen iyo in kale balse arrinkan waxa ay ka turjumaysaa xaaladda ammaan ee magaalada oo dad badan ay walaac xoogan ka muujinayaan iyo in aanan la isku halayn karin habeenkii xalay ahayd qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay mudaharaadyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo dadkii mudaharaadada ka falcelinayay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo bartiisa Facebook ku soo qoray hadal u dhignaa sidan waxaan soo dhaweynayaa banaanbaxyada nabadeed ee lagu diidan yahay muddo kororsiga sharci darrada ah ee qaybaha bulshada gobolka Banaadir ay ka dhigayaan magaalada Muqdisho waa tallaabo lagu difaacayo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda waxaana aaminsanahay in dibadbaxyadu yihiin habka ugu wanaagsan ee ay shacabku ku muujin karaan dareenkooda mudaharaadka ayaa ka soo bilowday degmada Kaaraan waxayna dadka ku soo socdeen wadada wadnaha iyaga oo soo gaaray ilaa iyo isgoyska Ex Florensa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si aad ah ugu walacsan tahay isku dhacyadii rabshadaha watay oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay si nabad ah ku xaliyaan khilaafka u dhaxeeya sida laga soo xigtay war-saxaafadeed ka soo baxay xalay waxaana mar kale ay ku celiyeen in dhinacyada ku lug leh ay la kulmi doonaan xayiraado ciidamada gaarka ah ee booliska Haramcad ayaa iyagana saaka tagay aagii ay ka baxeen ciidamada mucaaradka ee fadhiyay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan iyagoo halkaasi ka qaaday jidgooyooyinkii ay dhigeen labadii maalmood ee la soo dhaafay ciidamada ka soo horjeeda dowladda jidgooyooyinkani waxaa ka mid ahaa carro tuur lagu gooyay wadada xaafadda Siigaale ee degmada Hodan waxaa la sheegayaa inay fadhiisan ka sameysteen ciidamada ka soo horjeeda dowladda dhinaca kale xaafadda Miiraanyo ee degmada Cabdilcasiis ayaa iyagana waxaa ku sugan gaar ahaan qaar ka mid ah ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga hay'adaha dowladda maalmihii u dambeeyay xiisad colaadeed ayaa ka taagneed Muqdisho kadib markii khilaafkii siyaasadeed ee ka jiray arrimaha doorashada uu isku bedelay gacan ka hadal iyadoo isbuucyadii la soo dhaafay ay jirtay cabsi ayaa axadii waxaa magaalada caasimadda ah ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo xoogag ka soo horjeeda ee taabacsan xubnaha mucaaradka gelinkii dambe ee isla maalintaas ayay dagaaladu ka bilowdeen xaafado ka tirsan waqooyiga Muqdisho xilligii afurkana waxay dagaalo kale ka qarxeen dhinaca koonfureed gaar ahaan degmada Hodan inkasta oo ay dhinacyadu u muuqdaan inay weli meelo kala duwan isku hor fadhiyaan waxaana isa soo taraya baaqyada lagu dalbanayo in xiisadda la dejiyo iyadoo ay ugu horeeyaan kuwa ka soo yeeraya ururada bulshada rayidka ah isla dhanka kale maalintii shalay ahayd ayuu Ra'iisul Wasaare Rooble ku baaqay xabad joojin iyo inay wada hadlaan mucaaradka iyo dowladdu sababta waxa ku noolnahay waa deegaan dabka ku noolnahay xalaa marka waxaanu soo duldegay ciidamo cusub aan soo duldegeen oo waa xal 8 saac oo kale meelaha noo imaadeen ayaga cusub ay qoteen marka waa xaalad saas waa hadda annaga niyo waa sii qaxeena alaabteen waaba kan waa noo sii rantahay waxa rabnaa dhinac ceelash biyaha inaan u sii guurno ina u socda guriga tuuga u socda sayela inta aadana ilaaha la meel aad wax ma dhacooyo laakiin cabsi abu xana way hortiina qabati inta ka baxayna weega dinqato ilmay baar waxa joo baaray dhaafo ma gaari kar laami ma gudba kari ani inta waa nafa u soo degi ijaara u soo degi haddana dadkii waxa la soo kacay waxaan dadkii dhan oo baxay arse wax u jira maaya meehan dadka jooga liir wal qaxay ana waa iska soo baxay waxa u soo qaxay maxamed lama gabal hadii la dhigo ama joog kara lama oo talyahay lama madaxweyne ma joogi kara ilaa Allah waxa uu baaqaa dawladda mas'uul hadii la yahay
islaamka la barakicin wax ma haystaan wax la cuno hataa ma la haysto waa la soo xamaalooya wixii la helaa la cunooya ilmo yar yar la haaya ilmo agoon la haaya ilaahay alaga cabsado waxa ka barakaceena dadka weerarka nagu haayo oo weerarka ana laga daa anaga dibada ka imaanay dalkiina nabad aan ku imaanay waxa meesha ku haynan hadda waa aragtiin mucaarad iyo maxaafid anaga wadankan aan 30 sano ka maqnaan waa waxa aadana lagu gumaaday marka waxa aan kula tali lahay maxaafid iyo mucaarad inay fariistaan la hadlo dagaal waxba ma keeno waa lagu dhintaa maahan dagaal wax kale oo qabanayo ma laha waxa ka bareena hooyinaan waa qaxoona waa u jeedin waxa qaxay dibka noo keen waa idinka waa wiilasheeni waa raggeeni war ilaahay ka cabsado waa bil Ramadaan xaaladda aad u kacsan tahay qax aan caadi ahayn ka socdo waa arin aad u xun hadda waa dadkii saddexaad hadda wada oo maanta inta ka daldalaayo oo akala geey qaarna ood weyn geey kuwana Madiina marka la wada xaaladda maxaa u sii kiciyay macnaha qax badiye wallahi xaaladdan iyo dadkaas si boomboonina u maleynaa iyo meelahan ciidamada taagan iyo wax cabsida taas keentay kulay dad masaakiin oo iska sooman iyo carruur waxa gaariga saaran waa u jeedaa kulligooda waa ilmo iyo ayeeyadooda ma fahamta marka waa arintan arin aad u cambaareenayno aan uga xunnahay haddii shacabka Soomaaliyeed ka midnaa Axmed Cabdulle oo muddo badan ku noolaa xaafadda Baramuuda ee degmada Howlwadaag waxa uu sheegay inuusan isagoo aqoon meel u qaxo isagoo ugu baaqay dhinacyada isku haya siyaasadda inay xasarada qaboojiyaan aniga ilmahayga Baramuuda waa joogan mana ka baxay ilaahay haduu idmo inaan waa ku dhimanayaa moogi meel aan uga baxo uga qaxaman male yaa ii maqan hadaan baxo meel aan u ordama garan maayo marka ha laga tanasulo miiska wada hadalkana la isku yimaado kursiga loo hanqal taagaya maatada baabaayda iyo hantida baabaayda waxa baabaaya nin u jeedaa ma jiro walow farmaajo noo danayn qaaqlayaasha kala noo danayn cid shacabku danaysa ma jirto marka waxaan leeyahay ha laga tanasulo ha la isu yimaado miiska wada hadalka la isku yimaado